walaal saddex duco ha ilaawin marka aad sujuudsan tahay. saddexdaa duco haddii aad laasimtid oo aad mar walba la timaadid, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa adduunka kan waxa yaalla oo dhan wuu kuu qorayaa. sidoo kalena aakhira dadka jannada ku gelaya xisaab la'aanta ayaad ka mid noqonaysaa. waa haddii saddexdan duco sujuudda gudaheeda aad ku dhex akhrisatid maalin walba. walaalkayga muslimka ahoo ducada koobaad in aad tidhaahdid allaahumma innii as'aluka xusna alkhaatima. ducadaas maalin walba inaad ku ducaysato oo macnaheedu yahay ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khaatimo wanaagsan. ducada labaad allaahumma arzuqnii tawbatan nasuuxatan qabla almowt. ilaahayow igu arsaaq tawbo dhab ah inta aanan dhiman ka hor. ilaahayow toobo dhab ah oo nasuuxa ah ilaahayow igu arsaaq. ducada saddexaad allaahumma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik. allaha quluubta gadgadiyow qalbigayga ku sug diintaada. allaahu akbar. walaalkayga muslimka ahow saddexdaa duco haddii aad maalin walba la timaadid, adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadadaada oo dhan ayuu kuu sahlayaa. kurbada ku haysa, dhibaatada ku haysata, faqriga ku haysta, duyuunta ku haystana ilaahay waa kaaga rafcinayaa. waa saddex duco. waa marka aad sujuudsan tahay. allaahu akbar. maxaa ka wanaagsan ducada la ducaysta sujuudda? waa xilliga ay ugu dhowdahay in la aqbalo. allaahu akbar. walaalkayga muslimkow saddexdaa duco ha ilaawin, walaalahaaga kalena u sii faa'iidee kiliibkan. jazaakum allahu khayran. waa walaalkiin xabiib.